Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo safar shaqo u jooga dalka Turkiga ayaa wuxuu kulan la qaatay Taliyaha Ciidanka Booliiska ee dalka Turkiga. Warbixintani waxaa Turkiga naga soo diray wariyahayaga Axmed Darwiish. Taliyaha Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed Taliyaha Xasan Maxamed Xijaar iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid yihiin Taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir General Saadiq Cumar iyo Taliyaha Ciidamada Booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad Gaashaanle Farxaan Maxamuud Aadan ayaa soo gaaray dalka Turkiga kadib casuumad rasmi ah oo taliyuhu ka helay dhigiisa dalka Turkiga. wafdiga Taliyaha Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo uu weheliyo safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid ayaa ugu horreyn si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta ciidamada booliiska ee magaalada Ankara, wuxuuna halkaasi kulan kula qaatay Taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee dalka Turkiga Mudane Mehmet Aktash, waxayna ka wada hadleen wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac iyo sidii Turkigu u dardargelin lahaa tayeynta ciidamada kala duwan ee booliiska Soomaaliyeed. dhinaca kale wafdiga uu hogaaminayay Taliyaha Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed Sarreeyagaas Xasan Maxamed Xijaar ayaa booqasho ku tagay xerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Turkiga, waxayna halkaasi kulamo kula qaateen taliyaha iyo saraakiisha xeradaasi. waxay kormeer ku tageen qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Turkiga. waxaa la tusay qaabka ay u shaqeyso xeradan iyadoo xilligaasi ay ka socdeen tababaro kala duwan oo ay qaadanayaan ciidamadu. waxaa sidoo kale wafdigu booqday xarunta dambi baadhista iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay qalab casri ah iyo agabyo kala duwan oo ay isticmaalaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Turkiga. Taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Turkiga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan sida kuwa gaarka u tababaran ee Haramcad. waxaana ka warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulamadaasi iyo heshiiska ay gaadheen labada dal Taliyaha Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed Xasan Maxamed Xijaar oo dowladda Turkiga uga mahad celiyay siday u garab istaagtay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. waxaanu xalay saqdi dhexe ku nimi magaalada Ankara ee dalka Turkiga martiqaad aanu ka helay Taliyaha Ciidanka Booliiska ee dalka Turkiga aniga iyo wafdi aan hogaaminayo. booqashadaas oo saldhigeedu ahaa inaanu saxiixno protocol ama heshiis horay uga dhaxeeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska dalka Turkiga oo markii horeba la aasaasay 2013 oo iskaashiga labada ciidan. waxaanu saaka xafiiskiisa ku soo booqanay Taliyaha Ciidanka Booliiska ee dalka Turkiga oo si fiican ugu soo dhaweeyay xafiiskiisa. waxaanu booqasho ku tagnay xarunta dhexe lagu tababaro ciidanka gaarka ah ee dalka Turkiga. ciidankaas oo ah kuwa gacanta ku haya ama tababara ciidanka loo yaqaan Haramcad oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee u tababaran ee Soomaaliya ay leedahay kana tirsan booliiska Soomaaliyeed. marka ciidankaasi gacanta noogu hayaan waxaanu ka wada hadalnay sidii ciidanka loo xoojin lahaa, sidii la tayadiisa loo xoojin lahaa, sidii loo badin lahaa, sidii tababarkooda dib u habeen loogu sameyn lahaa, sidii qalabaad ay ballan qaadeen ay u soo dardargelin lahaayeen meeshihiisa dalka, iyo sidii ay u dardargelin lahaayeen guud ahaanba ciidanka booliiska Soomaaliyeed xiriirkii ka dhaxeeyay. waxaan kaloo muxuu ahaa iyagana ka wada hadalay tababar heer jaamacadeed ah oo akademiyada booliiska ee dalka Turkiga oo horay nooga soo baxeen saraakiil shahaadada koowaad ee jaamacadda bachelorka loo yaqaano iyo kuwa masterayda, kuwaas oo ay naga ballan qaadeen iyagana taradooda in noo badin doonaan. waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo dowladda Turkiga guud ahaan oo mar walba la garab taagan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed wixii awoodooda ah. hay'ad kasta gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muxuu ahaa ay nala garab taagan yihiin
dibu kabashada ama dibu dhiska ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyagoo noogu soo dira macallimiin iyagoo qaar noo soo qaada halka noogu tababara aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa